ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada xiisaha badan ee wararkeena ku daawan doontaan waxaa kamid ah dawladaha Kenya iyo Soomaaliya oo ku heshiiyay laba qodob oo muhiim ah. labadaasi qodob miyay saameyn doonaan kiiska dacwadda badda ee u dhaxeeya labada dawladood ayaan wararkii idinkugu soo gudbin doonaa. xog iyo macluumaad ku saabsan dawladda Soomaaliya oo hub ka dejisay degmada Hobyo ee gobolka Mudug iyo deegaano gobolkaasi ka tirsan. dawladda federaalka ee Soomaaliya oo haysata 7 fursadood oo u horseedi karaysa in si fudud dawladda Kenya ay uga guuleysato. Puntland oo faahfaahin ka bixisay xiritaanka xafiisyo ay laba wasiir ay ka furteen deegaano ka tirsan Puntland. Sheekh Somow oo dalbaday in maxkamad la soo taago taliyaha ciidanka booliiska. Al-Shabaab oo sheegtay in sargaal sare ay ku dileen magaalada Muqdisho soona bandhigay magaciisa. Senator mashruuc oo kamid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka oo ka hor yimid go'aanka Puntland. qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ayaan idinkugu soo gudbin doonaa warkeena xilligan. waa 20 Oktoobar 2019 u diyaar garoobay inaad daawataan warka shabakada wararka maanta oo intaasi ka faahfaahsan. dawladaha Kenya iyo Soomaaliya oo haatan ka dhaxeeya muran ku saabsan dacwadda dhanka badda ee ka taagan maxkamadda ICJ ayaa ku heshiiyay qodobo muhiim u ah labada shacab. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo wasiirka maaliyadda ee dawladda Kenya Ukur Yatani ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxay isla garteen in dacwadda dhanka badda uusan saameyn ku yeelan howlaha gargaarka iyo ganacsiga ee u dhaxeeya labada dawladood. sidoo kale waxay ku ballameen labada wasiir inay ka wada shaqeyn doonaan in mar walba xiriirka uu wanaagsanaado si uusan mar kale uusan u dhicin khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhaxeeya labada dawladood. shir jiraayid oo ay wadajir u qabteen kadib shirka miiska wareegsan ee bangiga adduunka iyo hay'adda IMF ayaa wasiirada maaliyadda ee Soomaaliya iyo Kenya waxay shaaciyeen inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo daris wanaagga iyo wada noolaanshaha. tan markii uu soo shacbaxay muranka dhanka badda ee labada dal salkana ku haya dhulbada dawladda Kenya ay sheeganayso oo ay gaaraya 150,000 oo kiiloomitir ayaa waxa sii xumaaday xiriirka labada dhinac kaasi oo ka sii daray markii dawladda Kenya ay qaaday tallaabooyin ka dhan ah Soomaaliya. dacwadda dhanka badda oo haatan ka furan maxkamadda ICJ ayaa dib loo dhageysan doonaa 8 ilaa 12 Juun ee sanadka 2020 iyadoo oo laba jeer dib loo dhigay kadib codsi ka yimid dawladda Kenya. markana aan eegno degmada Hobyo. wararka laga helay gobolka Mudug ayaa sheegaya in taliska militariga dawladda Soomaaliya uu hub iyo saanad ciidan uu ka dejiyay dekada macmalka ee magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. hubkan ayaa la sheegay in lagu qaado doonyo isla markaana ay ka qaadeen dekada weyn ee magaalada Muqdisho iyadoo laga dejiyay dekada dabiiciga ee magaalada Hobyo. waxaana la sheegay in hubkani uu socday 21aad ama taliska qaybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka oo howlgal la filayo in ay dhawaan ka bilaabaan deegaanada Galmudug kuwaas oo ka dhan ah Al-Shabaab. maahan markii ugu horeysay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya hub loo diro waxaana hubkan uu noqonayaa kii ugu badnaa ee dawladda ay gaarsiiso Galmudug si howlgal ciidan loogu soo qaado Al-Shabaabka ku sugan deegaanada Mudug iyo Galgaduud oo aanay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya muddo dheer wax dagaal ah la galin. macluumaadyo kale ayaa inoo soo socda balse markaan aan eegno 7 fursadood oo dawladda ay haysato. dib u dhigista dhageysiga kiiska dacwadda badda marka loo eego dhinacyo kala duwan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ugu jiro fursado ay ka faa'iideysan karayso oo guul u horseedi karaya Soomaaliya isla markaana inay ka gaarto kiiskaasi. aan soo koobno waxa ugu muhiimsan in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay siiso saami qaybsiga beesha degta Wajeer iyo deegaanada ka tirsan Jubbooyinka Gada iyo Shabeellaha Hoose iyo Bakool taasi oo loo arko hadii dawladda federaalka ay ku guuleysato inay noqon karto mid aan lagu gorgortamin badeena dalka Soomaaliya dhulka dharsan oo ay degto beeshaasi. waxaana midkaasi la sheegay inay ku baraarugsan yihiin madaxda ugu sareysa dawladda Kenya maankoodana uu ka guuxiyo in jab ay ku tahay hadii sidaas ay sameeyso dawladda federaalka ee Soomaaliya. arinta ma jiraan golo wacyigelin ah oo arrimahan bulshada Soomaaliyeed kala hadla waana arrin saameynteeda leh suurtagalna ka dhigi karaya in dawladda Kenya ay marin habaabiso bulshada Soomaaliyeed. waxaana muddooyinkii dambe soo batay khubaro iyo aqoon-yahano Kenyana oo wacyigelin warbaahinta u marinaya bulshadooda kuna dhiirigelinaya inay difaacdaan baddooda. kaalinta warbaahinta ee difaacidda badda ayaa 3 warbaahinta ka howlgasha Soomaaliya waxay ku dhiban yihiin inay helaan khubaro cilmigan bartay oo aqoon durugsan u leh si faahfaahinaha warbaahintaasi uga hadla. taasina waxay noqon kartaa fursad kale oo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ka sameyn karayso halkaas si shacabka Soomaaliyeed loogu sheego in badda iyaga ay leeyihiin isla markaana laga tusiyo dhan kaleento. 4 abaabulka qareenada ka qayb qaatay kiiskan waa fursad dahabi ah oo mar kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku xoojin karto qareenadii difaaca badda ee kiiskani halkan soo gaarsiiyay. hadii dawladda federaalka ee Soomaaliya isu keentaana dad badan ay aaminsan yihiin in guul ay gaari karto. arinta 5
kabaaraandegidda in saameyn uusan ku yeelan ololaha doorashooyinka. Inkastoo maxkamadda ay go'aamisay in kiiskan la qaado Juun 2020, haddana waxaa la rumaysan yahay in waqtigaasi ay tahay xilliga ololaha, waana fursad kale oo ay dowladda federaalka uga faa'iideysan karto inay sameyso qorshe cad oo suurto gelinaya in saameyn aysan isku yeelan ololaha doorashada iyo kiiska dhanka badda. Waana arrinta dowladda Kenya ay u aragto inay fursad dahabi ah u tahay, isla markaana suurto gelin karin in dowladda federaalka ee Soomaaliya ogolaato wadahadal ku aadan kiiskaasi. arrinta lixaad, wadajirka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay dowladda federaalka ee Soomaaliya in beesha caalamka iyo Kenyaba ay arkaan Soomaaliya oo wada socota hal mowqifna leh, waxaana lagu gaari karayaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya isku keento una muujiso xushmad iyo dulqaad maamul goboleedyada iyada oo ka bilaabaysa Jubbaland oo lagu xanto in Kenya ay garab ay siiso. arrinta toddobaad ee fursadda ugu dambeysay ee dowladda ay haysata waxay tahay in ciidamada dowladda Kenya lagu bedelo ciidamo Jabuutiyaana, waa midka isku soo jiidi karaya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabkeeda, wuxuuna noqon karayaa go'aan ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen ummadda Soomaaliyeed. Kenyana ku noqon karaya caqabad kale iyo rajo kale xumo mid u horseedi karaysa, waxaana warbixintan qoray Xasan Kaahiye. markana senator maxamuud axmed mashruuc oo kamid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Puntland ku matalaya aqalka sare ayaa ka hor yimid go'aankii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaasi oo ay ku mamnuuceen xafiisyo wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ka furteen Puntland. senator mashruuc ayaa waxa uu sheegay in go'aankaasi uu ka hor imaanayo dastuurka dalka, isla markaana aan la hor istaagi karin in xubnaha Puntland uga jira dowladda dhexe ee Soomaaliya. sidoo kale wuxuu ugu baaqay madaxda sare ee maamulkaasi in ay ka fogaadaan wax kasta oo dhaawici karaya qarannimada ummadda Soomaaliyeed. ugu dambeyntii senatorku wuxuu carabka ugu dhiftay in uu soo dhaweynayo fikradda ah in deegaan doorashada iyo xubinta ku matasha baarlamaankaba ay sameystaan xiriir joogto ah. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Puntland ay amartay in la xiro xafiisyo wasiirro ay ka mid yihiin wasiirada qorsheynta iyo shaqada ee Soomaaliya ay ka furteen deegaanada Puntland. markana Sheekh Cabduqaadir Maxamed Somow oo kamid ah culamaa diinka caanka ee Soomaaliyeed ayaa eedayn culus u jeediyay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed kadib waraysi uu siiyay warbaahinta. Somow ayaa waxa uu sheegay in muddo 2 jeer ay soo istaag ay ku sameeyeen ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliyeed lagana celiyay 2 bar control oo ku taala isgoysyada Sanca iyo Darjiinka ee magaalada Muqdisho. sidoo kale waxa uu sheegay in loo la xiriiray taliyaha guud ee ciidamada booliiska Soomaaliya, waxaana uu sheegay in iminka ay tahay arrin aan wanaagsaneyn. waa kan Sheekh Somow oo arrimahaasi ka hadlaya kadib waraysi uu siiyay idaacadda Kulmiye oo kamid ah idaacadaha magaalada Muqdisho. aad ma mahadsantahay idaacadda Kulmiye. warkaasi waa sax sida ku aragteen aniga oo duubay nikaax ka dhacay hotel Safari ayaan lagu yeeray inaan wiiliga halkaas iskula soo mariyo. waa baxay aniga iyo rag kale todo ila socdeen oo boorka ay qaatay oo boorka la saarayeen iskuiska Sanca markaan maraayo sida caadiga taaba waa istaagnay. waxaan weli gadaal baa tagaysiin halkaas geeysiin hoostiga waa baxay aniga digday waageeyay dad khiyaara oo meesha aan ayaan kula kulmay oo shacab ah oo kana la celinayo. waxaan yiri idinka baan taagay وأولي إذكار كان مشقين عليه حتى عادي ما نعصيه ما يوري لكن إذكار حكومة دينه وهي العلماء هذا يشخصون ولا لا أفكار هذا أنا يبرر أنا صدق هذا كله تجاربية كان كل دكتور وحيد شيخ هو مكان سيداي كل دكتور وعيتر أو حتى كل علاج في سيداي شيخ سبحان الله ما يوري ما كدينا يقول الله إذكار كان مشقين أنا أتين إذكار وما كدينه واقرت ومحاكم هذا كان يدور والله عبد حق الشبل وادي دكسناي مروا يمد الجنيه وحاكم يسابل بالجدين كدو كوريا مر افضل جدياتي وسود دغدي دغال ويغان يراهو جوغا سركار على اللي قتلوري وقتلي دكار كان تاغي وعوري دكار كان ملغو ديناي ومحاكم هذا دكار كان وحكوتل ما يقول قل بتغار واقرت واي هو بجد كماري كان ما يقول هاي وحنا نروح بوك يسار أنا بوليس ولا صعدة دروا كيجا استار كيجا كل بوليس واحد أنا واعيك مركز شخصهم واحد هدي أنا كسر يا دكتور محاضرة روح عاصمة دينا ندور على والد هديك لو توم حكلا لكم واقرت وكل أبدي وحاول عيركالية عيدا كبوليس الصومالية هاي جنرال عبد حسن واحد إذا ما قرن فريق بورها العمود بري إذا سو جوابين
haddana waa ku celshay igama qaban markii saddexaad uu qabtay waa garta saas baa dhacday taliya si jaas oo kibir oo ku jiro wuxuu yiri Sheekh Somo oo miyaad anigoo taliya ciidanka Soomaaliyeed booliska Soomaaliyeed taliya ciidanka booliska Soomaaliyeed anigoo miyaad shawcaysaa did iga xiran oo booliska iga xiran waa garta oo hadii boolisku jidka uu xiro oo adiga aad xakurto oo anigu culimada dad aan nahay oo shacabki aan nahay wixii dhawaataa in adiga ku soo sheegay Soomaaliya marka waa maasan tahay وانا يقول لي عند بوليس waxaan ku arki jirnay boolis naxariis badan oo dugowda jidka gudbiya oo shacab saaxib la oo ardayda gudbiya waa boolis noocaana waa maasan tahay hore ma u isticmaali jirto wadooyinka maanta laga celiyo wadooyinkaas waan isticmaali jiray waxa cusub waxa waaye marna waan celi jiray marna waan ka gudbi jiray laakiin waxa cusub waxa waaye in aan tarihi ciidanka booliska Soomaaliyeed oo abudo anigoo u ordaya ubadka Soomaaliyeed anigoo u dagaalaya inaan ka xalaalayo waa shaqsamo waxa weeye su'aasha inaan talihi marka qaarkood waa la celi jiray sax waa dhici kartay hadii marna uu ku jirto la geey jiray marna caadi la geey jiray laakiin waxa cusub inaan tarihi ciidanka booliska oo si jaas oo ila waramo jidkina leeyahay xiro digaag ka baro waa maasan tahay wax badan ay madaxda qaranka jidadka furadaan madaxweynaha kala hadalnay wasaaraha kala hadalnay taliya booliska laftiisa kala hadalnay koordinatoraha kala hadalnay shacab wax badan aan ugu nasiixaynay laakiin haday gaartay in aan dad nikaax sidi karin oo wiliga Soomaalida ina soo xalaalaysan ay tahay xafladii aan socotay laga celiyo haday gaartay in taliya booliska ugu sareeyay inta waxa uu kibir iyo jaas ku waramo waxa ay muuqato marka in dadka kani marka ay tahay xilliga ku habooneed oo markaas arrintaani lala wadaagi lahaa bulshada Soomaaliyeed waxgarabka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed lala wadaagi lahaa marka ayuu gooni kumay ama ixtiraamayo taliya inuu ayaan wacay laakiin asiga ayaa mas'uuliyadiisa saasna wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliyeed kala socotay shabakada wararka maanta waa naga intaa warka xigeentaa ku kulmi doona nabadgelyo